kalluumaysatada ku dhaqan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya jariifka doonyaha kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka Iran kuwaasi oo xaalufin baan ku haya kalluunka dhibaatooyin gaarsiiya kalluumaysatada badda u jilaab tagta Khaliif Yusuf Ibrahim waa xiriiriyaha iskaashatada kalluumaysiga wadajir ee Boosaaso waxa uu ka hadlayaa jariifka doonyaha Iraaniga ay ku hayaan kalluunka dhibaatooyinka ay soo gaarsiiyaan kalluumaysatada iyo cid ka dambaysa inay yimaadaan xeebaha gobolka Bari adoonyahaasi jariifka doonyaha Iiraantu waa wax jira oo caamo dadku wada og yahay waxay u badan yihiin badda cas innagana keenay oo xaalufinta waxa bilaabaya waa dadkii dhulka lahaa nin walba magaaladiisii uu doonyo keenay oo ku xaalufinaya hadda waxay ku darsadeen jariifkii hawl kaleeto oo ka darantii oo ah inay handadaan kalluumaysatada Soomaalida uguna yimaadaan ilaa laba meel iyaga yiraahdaan qaata shabaagihiin oo ay iyagu dhigtaan waa shaqo la'aan doonihii kalluumaysigu waa kuwa halka ku safan waa shaqo la'aan weeye waxa koos gareeyay inay soo fadhiyaanin waa hawsha iyada ah weeye kalluumaysigu iclaan bay bixisay doonyaha kalluumaysiga in Iiraanta in la soo qabto cidii u timaadana maxkamadda la saaro hantidoodana lala wareegi doono annaguna waan ku garabsiinayna dawladaha kalluumaysatada beesha caalamkana wax laga qabtaa waan ugu baaqaynaa xeebta Boosaaso waxa uu soo shaqo taga maalin kasta in ka badan 1500 oo qof kuwaasi oo ay ku tiirsan yihiin dad danyar ah waxaana dadkani tirada badan soo wajahday shaqo la'aan markii ay waayeen kalluunkii ama ay dhibaato uga soo gaadhay dibtii ay u geysteen doonyahaasi jariifka Hussein Hassan Hussein Huska Somali Public TV Boosaaso